بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa Dr. Bashiir Cabdullaahi Salaad ahna agaasimaha isbitaalka Daarusalaam. Isbitaalka Daarusalaam wuxuu ku yaalaa deegaanka Daarusalaam ee magaalada Muqdisho duleedkeeda ah. Isbitaalka Daarusalaam waa isbitaal weyn oo mataqaanaa takhasusad badan leh, qaybo badan leh, waxa complete aan u dhameystirnay bukaanka service walba oo u baahnaa. Beko waa shirkad weyn oo aan naqaano wadanka Soomaaliya magac iyo muunad kale. Annaguna waxaan ka midnaa customer-ka ka adeegta oo mataqaanaa shaqooyinkooda maalinlaha iyo daily night-ka labadaba ka qaata. Isbitaalka Daarusalaam qaybaha oo hadda mataqaanaa aad iyo aad ugu ammaanayo qaybta korontada ay mataqaanaa naga caawisay oo shaqo fiican nooga qabteen waa qaybta qaliimada, saalada qaliinka oo 24 saac joogto aan qaliimaadka ugu galno oo mataqaanaa alxamdulillah ay korontadu naga go'inin oo uga mahad celinayna. Qaybta ICU-ga bukaanada critical care-ka ah mataqaanaa qaybtooda oo ventilatorada badan ka qaataan iyagana waa uga mahad celinayna si sharafta leh oo korontadu ay mataqaanaa constant-ga noogu tahay. Qayb waxaan leenahay weyn oo iyadana dialysis-ka ah oo iyadana mar walba aan ka maarmin qalabka loogu shaqeynaa bukaanadaas in ay helaan mataqaanaa korontada oo mashiinadii ay ku xiran yihiin. iyagana mataqaanaa waa waxyaalaha shirkadda aan aad iyo aad uga mahad celinayno. Qaybta caruurta iyo hooyada iyo dhallaanka oo iyaguna ka mid ah qaybaha ugu adag oo bini'aadanka lagu kaydiyo oo ilmaha loo yaqaano ICU loo yaqaano. qaybtaasna mataqaanaa iyadana waxay nooga qabteen waa korontada ammaan iyo sharaf iyadana aan ugu hayno. Si guud isbitaalka qaybta CT scan-ka oo kale oo qalabka waaweyn oo culus oo yaallo waa shaqooyinka noogu badan. Marka waxaan ku soo gabagabeynaa ka isbitaal Daarusalaam ahaan anoo ku hadlaya maamulka sare ee isbitaalka maamulkiisaba shirkadda Beko aad iyo aad u mahadsantihiin shaqo fiican bulshada u haydin.